federaalku wuxuu yahay waa dowladda dhaxaa xoog leh xoogna waxay ku leedahay waxaa hoos taga oo ay maamushaa arrimaha ciidanka qalabka sida iyo difaaca dalka waxay maamushaa siyaasadda dhaqaalaha waxay maamushaa siyaasadda arrimaha dibadda waxay maamushaa siyaasadda immigrationka iyo xuduudada haddaad maqashaan dowlad awooddeedu waaba intaasba dowlad goboleedyada waxaa u soo haray in adeegii ay gaarsiiyaan hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad hadday tahay inay dadkooda mas-uulka ka yihiin ay ka warqabaan hadday tahay ceelal inay u sameeyaan iyo canshuuraha inay aruuriyaan oo qaybna ay ku leedahay dowladda dhexe anigu waxaan ka hadlahay systemka federaalka adduunka ka jira waa noocaas laakiin maamul goboleed hadduu yidhaahdo siyaasad arrin dibadeedaan leeyahay oo gaar ah oo waxaan rabaa socodka inaan badiyo oo meelo badan tagtago su-aasha taalo waxay tahay haddii aad la fadhiisato madaxweyne silvakiir haddaad la fadhiisato adiga silvakiir maxaa idinka dhexeeya maxaa kala siixan kartaan ilaan adigu dowlad goboleeda tahay ninkan wuxuu madaxa ka yahay marka haddii aad soo raadsato silvakiir iyo madaxweynayaasha gobolka nala degan haddaad soo raadsato ama ra-iisul wasaarayaasha aad soo raadsato macnaheedu waxay tahay waxaad muujinaysaa dalkaaga inuu kala daadsan yahay dalkaaga inuu fowdan yahay maxaa yeelay maamul goboleedkooda aniga ima imaanayo nidaam iyo shuruuc iyo kala dambeyn iyo kaalla si kale idinkugu dhigo haddii marka dowlad goboleedku uu yidhaahdo intaas anaa iska leh federaal maaha waxaan ka shaqaynayne waa confederaal way confederaalna waa one step away waa hal tallaabay wuxuu jirtaa kala go-id dalkaas inuu kala tago ma rabtaan dalka inuu kala tago idin ma rabtaan